السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن هالكن ما أنت كجهد لياه وحن هينين مشرحة ماذا يديبان عدينا يا ما أنت منام بان كشرحنا هاي أما ريو أما وحي نولي بشدو يغانو وحكم إذا هبين هذا كم إذا أيها وحى الله يتصي يضغو عن حكم كقبطي ميل والبروان مري وان قد بديي meel kasta waan soo maray markaan aan soo gaabiyo waxaan leey kursiyo fooq ummadii oo hoostuban baan u tagay waan u qudbadeeyay waxaan ku soo gaabiyay maanta horteed layma soo dooranine oo ma aan iman halkane hadii ay waxiga qaldabaan raali iga ahaad hadaba inta ay cajab galisay waxa weeye markaan khudbada dhameeyay midigtaan eegay inan baa ila hadashay waxay tiri kursigii baan ku dhameeyay madaxweynenimada waad ku fariisanayso ee fool sida awgeed markaa kursigu saddex jaran jaro lahaa saddexdii jaran jaro intaan is ag taagay oo shaydaanka naaray ayaan saddexdiiba bisin ka qabtay sidaas halka riyadaas igu dhamaatay anigoo hadda markaa aamusan oo isla war siyaasi hore maadahay nin bukaba tahay sidii arrintan u hergelaysa ayaa shan nin oo kala dambeeyay nin waliba mariin wuxuu igu yiri waxaan ku riyoonay iyadoo meesha lagu geeyay sida awgeed dabdeedna anigu xusbina malihi kharashna ma hayo siyaasi hore ma ahayn siyaasan horta alla u sugaya dabeedna 9 qaynuun baan sameeyay qaynuun waxa kamid ah inta kale waa isir sheegi maayo hadii ilaahay meesha igeeyo ana ku shaqaynaya hadii aan tagi waayna cid iga qaadato waa arrimo macquul ah ayaan kula shaqayn doona hal qodob uun ban markaa 9 qodob soo qaadanaya qodobkaasi wuxuu yahay waa qodobkan inflationka ama ninba sidoo u yaqaano sixir bararka sida awgeed waxaan doonayaa anigu sixir bararkii markii ummadii oo dhameen qaylisay ee meel walba buu ka dhacay ee la qayliyay in la muwaadin baan ahay inaan sixir bararkii wax ka qabtaa baan doonaya haddaba sixir bararkan wax ka qabtay anigu waxaan doonayaa inay ila kulmaan waxaan xukuumadda ka codsanaya waxaan golaha guurtida ka codsanaya waxaan ka codsanayaa golaha baarlamaanka oo qolo walba joogtadeedan doonaya waxaan ka codsanayaa wasiirka cadaaladda waxaan ka codsanayaa ninka maxkamadda sare haysta intaas inay ila qaban qaabiyaan cid aan doonayo markaan afaleeshika wax ka qabanayo waxa weeye samsam cabdi aadan oo maaliyadda ah Umar Shuayb ninka la yiraahdo oo wasiirka ganacsiga ah gudoomiyaha bangiga dhexe iyo DG-giisa intaas baan doonayaa in la soo hor fariisiyo aniga wax ka qabanaya ilaahay baan yiri warqad ka rabna binaadama qof waxba loo sakhiray waa la sakhiray iyadoo ogay in layga cilmi badan yahay layga shahaadada weyn yahay in kolomis ay sitaan DHBG baashi kale ay sitaan maxay ahayd PhD ay sitaan ayaa hadana aniga la ii sakhiray marka waxaan doonayaa qolada marka la soo hor fariisiyo inaan baananka yaryar ii iman xawaladuhu ii iman ganacsatadu ii iman sariflayaashu inaan ii iman hase ahaatee qaynuunka marka la iga qaadi aan dejiyo cidda lagu fulinaya inay iyaga noqda in 2 bilood arrinta la igu eego in la fuliyo dabagal 2 bilood lagu sameeyo ummadan Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa ee habeen walba calaacalaysa ee habeen walba TV-ga taagan ee aanan ku arkaynin nin kaliya oo war fikrad baan hayaa ama ha socoto ama ha socon weyde waxaan anigu taaganahay oo aan ka codsanayaa inay arrinta hadaanan qaldanayn ugu taageeraan oo yiraahdaan war ninka hal eego ana inflationka wax uga qabanaya inflationka ilaahay baa ii sakhiray qodobkaasaan doonayaa inaan ummadda maanta uga faa'iideeyo nin wax kale rabana mihi ujeedda kalena mihi nin muwaadin baan ahay ummadii oo qaylinaysa baan arkay ummadii oo calaacalaysa baan arkay arrintiyo ujeedda kasta ha laga lahaadee raggii iga cilmiga badnaa aanay saxayn baan hadana arkay waxaan haday waxoogaygii bangiga yiilo ayaan hadana arkay orientalka agtiisa inta la soo taago 3 maalmood inta la waxba la sarifaya maalinta dambe lacag kale ku kordhiso sida iga hadlisay maanta ee halka kan aan warkayga ummadda Soomaaliyeed dibad iyo gudo waxaan ka codsanayaa waxaan leeyahay arrinta igu taageera halay eego ana wax ka qabanaya gudoomiye ma rabo mid bangi ma rabo nin maanta wasiir raba mihi nin muwaadin baan ahay waxaan wanaagsanaanaya anigu wax baan ku leeyahay sida awgeed arrinta halayga aqbalo halayla qaban qaabiyo daba hadaan dub ugu noqdo musharaxnimadaydu hadii ilaahay meesha ay geeyana waa alxamdulillah
haddii aanu igayna waa rabbil caalamiin oo aniga shiintay kharash igama bixin nin siyaasina maan ahayn sida wax lay tusina waa si weyn nishanin oo kale ninba mar socdaana wuu yima arinta wuu arkay sidaas ilaahay wuxuu la taqnidu bi rahmatillah baadaba wax lay tusay xaga allah la iga reebay si kastaba ha igeeye anigu nin taagan baanahay oo taana sida ugu taagan wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh